qofka soo inaga midi bal inuu isku dayo naftiisa inuu ka xaqiijiyo sifaadka noocan saddexda sifo oo ah maxabada ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo cabsida ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo sidoo kale rajada ilaahay tabaaraka wa ta'ala naftaadu markaad ilaahay caabudayso eed cibaado ku guda jirto noocay doonto ha noqotay ilaahay aad ugu dhawaanayso waxa weeyaan maxabba ilaahay iyo jacayl ilaahay iyo rajo ilaahay subhanahu wa ta'ala ma kulansantay mise ma aad kulansan qofka hadda mid kamida ka gaabiya saddexdan waxaanu shaki ku jirin inaanu la imanin cibaadada ilaahay subhanahu wa ta'ala uu abuuray oo aanu xaqiijin bal culimadu waxay leeyihiin qofka mid kamida ka taga amba saddexdan mid kamida ku gaabsada taasi waxay u keenaysaa naqsi iyo nusqaan adduun iyo aakhirana qofkaas waa ay dhibi doontaa walidaalika ba culimadu waxay ku tusaaleeyeen qofka cibaadadiisu laga helay saddexda arin بطائر له رأس صحيح وجناحان يطير بهما فمحبة الله مثل الرأس والخوف والرجاء مثل الجناحين وهي علماء كتس عليين قفك مسلم كإله سبحانه وتعالى عابدية عبادتي صلى الله عليه الله كعبسي يا الله الرجين يا إله سبحانه وتعالى تعيل وتعليه وهي كتس عليه سيدي شمبر أكله شمبر مدح له يلا وباله وكدوله waxay leeyihiin madaxu halka shimirku ugu jiro ayaa cibaadada qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caabudayana jacaylkiisa iyo maxabada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan halka ugu jiro shimirkaas madaxa ayaa waxa weeyaan qofka cabsida maxabada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu jirta cibaadadiisa waxay leeyihiin cabsida iyo rajada Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay ugu jiraan qofka muslimka cibaadadiisa halka shimbirka labada baal ay ugu jiraan waxaan ognahay shimbir hadii waxa weyn inta la soo qabto madaxa laga gooyo waxa ku dhacaya talow uu dhimanaya waana baabaya walidaalika waxay leeyihiin fatalafu ar-ra's talafu liljuthati kullaha hadii waxa weeyaan shimbir inta la soo qabto madaxa laga gooyo madaxaasi sida uu ku daayay ayaa shimbirkaasina meesha uga baxaya bimaana uu dhimanaya wa inkisari ahad al-janahayn mani'un min al-qudrati 'ala at-tayran waxaan leeyihiin sidoo kale haddii shimbirkaas baal kamid uu ka jabo amba wax ka soo gaaraan sida awood aanu ugu helayn shimbirkaas inuu u duulo oo kale ayaa qofka waxa weeye cibaadadiisu ay ka maqan tahay amba ay ka dhaawacan tahay cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo rajadii cibaadadaas ay u kala dhantaalanta waxaynu ognahay shimbirku hadduu baalka waxa weeyaan uu ka jabo amba wax uu ka noqdo amba uu ka dhaawacmo inta badan maxaa caada inaanu duulin sidaas oo kale walaalayaal ayaa waxa loo baahan yahay cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu caabudayno inaynu ka eegno ka fiirino saddexda qodob in cibaadadeennu ay wadatay in kale